بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين دمان أصحاب تقاليد أشرف تبضل ومرحلة يو تجاه فيلمس أو واحد كذا وحركم كلمي مركب قارسة السلام عليكم كاين بيسوق بيننا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدبر السلام مرلباتك هالك واحد قاركتان بيجي يو واحد كوري حسين مندل وعاود كنو أسمن وواحد كوري تعايل واحد كوري gabayo heeso sheekooyin inta bay noo haya in la wadaagi doono hadaa la ka dhigo insha Allah billahi kariim marka ugu horeysa waxaan ku bilaabi doonaa xasan bataan waxa asxaabta leedahay marka asxaabta marka hore waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan soo aanaysan islaamka kulli wax badan sii dhimayo asxaabta la isu kaliya noqdaya kadib ay soo rajinaya waxaan leeyahay heesiro qaraamiye kaliya qaadaya أظن بندرة درية هبينكي دي بدها وريقع أنا أقل تكسون بعد ودي نفطي داي الله إيقاد داوتايو هاد بدايقتا وي مدبعات هذا ما نديقو دايسا أشركي تمغنيا كقول أنت قاي إنكسنوش دارين تحسن كهيا مركب حنا ساعتين أنت هربان كل يعوى يا يسوقون ما شاء الله أد بعد ما صنت حي وحاتنا كقرب كي حسين من دالله حسين برتا هل كان حسين الله ينقرص هذا channel حدقها في المس مركب هو رسم هذا أصحابها في متعاونس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حدقها في المس أبان قوم هذا نقيا سودوينتي كالجعالك أي مرة والبيها ينقربك يقاشانك هتسند بان لي هاي حدقها دواياش نتعاون يعاد كانوا حسينين وحلا هاي حسين مندلا إن بدن بتغانين أنا سيدو كلين بدن بالمقاني إن شاء الله وحن رجينا يا إن برنامج شو نخلي قليا أن هالكن نيجي صدق دونه هاس تروح حويان هاس تعايلة أو لفهيدا ينفتي إذا بكون عادي مادام هو تعايل بدن أو حساب بدن مقابل عن تعايل كنا وياهي حياة بدن وياها نلاش كحلية هاس تروح حويان سدتان بعدها بلمودي يقول بركي عشقة وحليدي بقشو وحيرادي بابور بريو سناك تغا حتى بدان قروح كما باقن كريه لسي اللبابال أن من تبودو بريتا بلجوغي تعيل بريه ليبا بركي قدقيو انتو يقول بلادو بهليو هالبولها بوليغا سميستي كل بدو واد فلسان وانا اللي يقول لما هي وتعايل history le oo aad u dhameystiran ayaa igu dhacay aniga laftigeedu marmar waan yada waxaad ay gaadha inta soo beecaan waxba jacayl badan aan wax jeclaaday haddana haweenka geeyga Soomaalida degan marka raali gelintooda aan siino inay haweenkiina la dhashay ay yihiin jacaylkuna uu wax jiray yahay lana beero sida beerista cuntada loo beeriyay ama beeraha kala galeeyay qarmacdu jacaylkuna uu beerma marka waxay la tahay dad badan way aad ugu qushuuceen heesta waxa ay hadhay way aragnimadeedii hore aan haday noqoto darbiga haday musano okay kulli wad noo dambeyn doontaa insha Allah wax badan oo nala wadaagi doontaa asxaabay kulli Xuseen Mandela waxyaabo badan baad uga barateen ما شاء الله هرتا نك رجع جب والبو صامري وما أنت وادي عارك حسين وقال كاب رحلة بمن كم قضاء يوقت جي خراء واحد تري وقت بحراسة هيس لما مدة صومالية ملك استوى يشوكت خابطي هيس تاسو حسين يو وحن كوري بنمكي مركز حكاسي وفينك وهاي أي تريين بل وين كسرتون ما شاء الله أنا وصلنا نقولنا وحالك dhinac shitooga mustarshaata oo xoogaa in gaar maqnaa baryahan asxaabtu maxaa leedahay shaataayo maadaama dadka bismillaahi rahmaani rahiim asxaabta badin salaamaya dhamaantiin inta nagu xidhan iyo inta nagu xidhnayba inta aan nagu xidhnayna waxaan leeyahay soo raaca na soo dabagala aan isdaba socono
caaw halka min odaya nala fadhiya anagu marti noo yahay waa asxaabtayda yani waa dad yani aad iyo aad isugu dhowaan ay ka nahay labadaa meesha waad garanaysaan iyaguna waa ciidamadayadii uun markaa waxaa noo martay caawa ninka odayga ah ee wada taqaanaan ee xuseen la yidhaahdo caawa jananku ninkaas uu casuuman yahay ninkaasaa caawa meherada kala kicinaya isaguna meherad gaar u leeyaho de meheradiisana waad tusi doonaaye bal odayga dee la wadaago oo la sheergareeyo oo subscribe la galo oo odayga waxaan ku leeyahay iyadana waad la wadaagi doonaa de xuseen kulliga wada garanaysaan iminka inaguma cusba hore u taqaaneen waa de nin waxaan ku leeyahay meelo badan soo maray oo waxaan ku leeyahay de ummadda Soomaaliyeed ay wada taqaanaan dad iyo dibadba intaa ka soko waxaan leeyahay mar walba iyo meel kastoo joogno aad baan idinku mahadcelinaa asxaabteeda ee nagu xidhan channelkeega waxaan idinka codsanaynaa inaad channelka subscribe garaysaan share garaysaan hadda wada leenahay wada shaqaysano xuseen ayaa idinku wareejin doonaa xuseen intaan ku wareejin waxaan idin sheegayaa maaha markii ugu horeysay oo ka soo muuqan doono xagan marar badan oo kale uu nala wadaagi doono insha Allah كل وقت وعاء وعاد موجود إن شاء الله بإذن الله كريم حسين من دارنا كل قف كستا أو ده هرتها جبيهان كل يسوم جيجا سوم على قف كستا أنت بدن نوريها عاد بالله عاركي مرة بدن هلكم نسوي في السنين تونا وحياة بدن نورو ولا جو وحكلون إذا شيء قلنا فيلمانتي كل كمان عاجزين وأنا جاي أعرفنا إن دي بسكون نقلنا إن شاء الله بإذن الله كريم وإحنا دون إن شاء الله dhawaan inaan film aad u jeclaysataan aan idin soo gudbino filmaantaas oo xitaa Xuseen Mandela uu qayb ka noqon doono hadii Ilaahay naftiisa uu daayo biidnillaahi kariim haddaba waxaan idinku codsanaynaa channelka hadii aad ku cusub tahay ay tahay markii kugu horeysay inaad subscribe noo saarto hadii aanay ahayn oo nala socotina inoo share garee si aan idin soo gudbino waxyaabo aad idin raali geliya oo markaas idin anfaca insha Allah haddaba aan soo noqdo Xuseen Mandela horta Xuseen Mandela laftiisu wuxuu iska leeyahay channel ay ugu qoran tahay Xuseen Mandela hoostaan idinku soo qori doono biidnillaahi kariim waad ku yaaci doontaan insha Allah xagga iyo xaggana labada jeer baa waxaan ku ka soo muuqan doonaa haddaan u soo noqdo Xuseen Mandela waxaa tahay nin horta aad loo jecel yahay garasa xagga sheekooyinkiisa من مقرصاي waxyaabo badan la wadaaga marka horta waxaan wajigaaga ka dheeqday aan ka dareemayaa in jacayl badan ku soo maray haddaba bal wax nooga sheegi kartaa jacaylka ku soo maray waqtigii kugu horeysay iyo hadda ma leedahay oo ma wada joogtaan والله هرت بجعلك لفتي كيس مركل لقى حظي هرو ونص جعلينن oo taariikh yar oo aan soo gaabinayo dadkana daawanaya ee aad kan ugu xiran iyo inankuba jacaylku dhinac walba u baxa inanka laftigiina waa jacayl daawadayaashana waa jacaylahay jacaylka runta ana waa tadabta ah inan baan jeclaa lan ayaan ka jeclaa Djibouti oo inantaas magaalada Djibouti halkan kulli waxaan leenahay Djibouti oo saad baan inantaana la soo raadiyay insha Allah ya inantaas Djibouti la soo raadiyay inantaas Djibouti la soo raadiyay halku dawaqo aniga laftiga dawqaad way haysaa oo wali ma soo bixin inantuna waxa weeyaan was jeclaanay adigu jacaylku waa la muraan markii dambe inantii hadafkayga baalash lanaha waxay ila garatay inaan noqdo aan la noolo inantii waxay ii qaaday hees jacayla oo aan la dhacay oo aan la suuxay marka heesta waxa weeyaan sida ana qaadaya heesta waxa weeyaan jacaylkaaday hayo habeen hurda ka ma seexdeen daraartii ma halgalo adaan kugu heenayahay waa ay bado halbawlaha dhiiga qaadiyo halista wanahay jare hubaabiyaday baday hogayga ku moodaya harabaan ku qabaa hawada ka daawada haddii ayna isali ambayna wala heshii naftaydan hallaynayaa
taasay qaaday ana waan dhigi baxay dabeetana qalbigii iyo niyaddii bay dhistay marka inankan jacayl badan oo gaaraysa 9 bilood ayaan soo maray marka already waad daawanaysaan daawadayaal oo wada xiiseynaysan inankan sidoo kale waan xiiseynayaa marka jacaylku wax jira oo beerma waa sida galleyda qarmacda iyo digirtu ay u beeranto ay jacaylku u beerma indhamal dadku waxay inta badan yidhaahdaan jacaylku indhama leeyahay ha indho iyo af iyo sanba u leeyahay laguna u leeyahay socda jacaylku aniga hurdada dul jacaylmaan abatana suuliga halkii aan gali lahaa aniga hurda ayaa waxa dhacday aniga suuliga galaya ama tukanayo kale ayaan ama kaaga ugu dhacay dabeetana waxaan heer gaadhay inaan gacan suuxo jacaylka ma loo suuxa waa loo suuxa taataana anaga soo marnay okay marka waxa waayihii nolosha oo dhan xanuunka jacaylku waxa weeyaan waa mid lagu suuxo iyo mid suuliga aad geli weydo ood ku dhacdo aniga war waxaan kuwaaba soo kule ama kaaga iyo waxa igu dhacay waa dawqi gaadhiga gabadha jeclaatay iminka ma wada socotaan ma la xidhaano iminka inantii muddo badan baanan iminka 2 bilood baanan wala xidhiidhin laakiinse muddadii hore waan wala xidhiidhi jirnay asxaabta tiktok tiktok asxaabtu mar walba fiidiyoyadan galiyaa way iyagu way soo codsadaan anna waan codsadaa dabeetana waxay igu xidhan yihiin dad badan baa igu xidhan oo asxaabta ka maasha Allah ninka laftigiisu asxaabta waa ka mid noqon doontaan dayax xidigaha laftigoodu dawcaaw martibaan u hay xidigahana waxaan leeyahay dadweyne wada daawanaysaan iyo dhalinyarada Soomaalida geeyga Soomaalida degan oo dhan guda ila dibad waxaan leenahay tahna ilaawina anaga sidaa ilaawina aniga Mandela oo dhinacayga YouTube-kayga ilaawina ma soo qori doona insha Allah mar walba waxaad garab naga siisaan sidii dadaalkeeda iyo dadaalkiina waa isku kaayimid labadiina iyo labadayada waa isku kaayimid marka insha Allah noo dadaala anaguna noo dadaalina insha Allah maalin walba film ama musalsal ama hees ama jacayl ama hadafyo kale baan isoo gelinaa insha Allah Allah aad baad mahadsantahay Xuseen Mandela oo in yaro kooban oo yacni wuxuu aad u taabtay ama uu dul fadhiistay jacaylku wuxuu yahay qaabkii uu dhacay iyo wixiiba insha Allah inala wadaagay waxaan odhan karnaa Xuseen Mandela aad buu inooga horeeyaa xagga jacaylka maadaama wax badan ama jab badan ka soo arkay maasha Allah annaga oo xidigihii oo isku duubana mar walba waxaan la garab taaganahay wax kasta oo niyadiisa ku jira ama qofka uu jecel yahay sida uu dhaqsaha badan inuu ilaahay markaasi insha Allah horkeeno oo ku guuleysto jacaylkiisa haddii Allah ka dhigo insha Allah markaas asxaabay nala socda meesha yare casman cadeeya ma fahantiin haddii kale Xuseen Mandela halkan soo fadhiisan maayo waxna inala wadaagi maayo sidaan noola socda haddii Allah ka dhigo aanu gudba hadda Xuseen Mandela Xuseenow haddii aan u soo noqdo waqtigii aad marxalado adag baad soo martay oo waxaan ku wari waxaad mar ahayd afhayeenka darbijiifka oo waxaan ku wari aad baa lagaaga yaqaanay run ahaantii annaga markii aan dib u daawanay fiidiyoyadaadii heestii aadka noo taabtay waxaa ka mid ahaa heestii darbijiifka aad u qaateen oo waxaan ku wari Soomaali Maxamed meel kastoo ay joogto ay markaasi dareen ballaaran ay qaateen waa ay idin soo jeedsadeen maasha Allah waxaan doonaynaa heestaasi oo adiga oo simcaanta codkaaga ugu luqeynaya inaad noo sii deyso asxaabtana waxaan ku wari indhahaadu furto waayahay daawadayaal waa nagu soo noqday waa Xuseen Mandela xidigahana la socda meesha dhac ka siiya noo toosiya hadalka ra'yigeena iyo ra'yigeedu waa isku wada mid marka inaad nala qaadataan oo noo soo fadhiisataan aniga Xuseen Mandela waa nin waay anigu isfaaninayn sidoo qof indhala hog aadaan ku dhacay waa caqabadeeda leedahay marka nin waay araga oo dhameystiran ma jira dad badan oo iga soo waay aragsanay way jiraan oo Soomaaliland ku nool ama geeyga Soomaalida ku nool marka rajada iyo himilada qof walba waa gaadhaya insha Allah ilaahay waxaan ka rajaynaynaa guul iyo nabad iyo horumar waarta insha Allah marka heestan waxa weeyaan hees taabanaysa nolosha oo dhan sida tan waxay ka mid tahay heesta dhageysta duruuf adag baan ku koray daryeel hooyana mehelin dadaal abna ma arag
tuliyo xididii damqada dadkana ku melihi walaal waxaanu hoydaa derbiga bahida dacalkayga taal ayaa hadda warsiga i baray darxumo badan baan qabaa tubkayga waxaa ku shidan dabku waayuhu isuday hal doora mar baan lahaa damiirka gambaan lahaa inaan dadka caawiyon digitoor noqdo waan jeclaa waxse helada kaamiya dantiyo waayahay xidhay duliga nolosheen ku jiro dadii dumarkay tagan dugusiga iyagoo qurxoon ayaan ku dhadiiq mihilin farxadda waan kala didnaa waxaan gishidaa diriis maryaha duugeen qubtan duxiyo iigaan macumo dugaag waxaan qaybsanaa hambada daadisaan barbaadaacuun ogaay markii waayey dabiibi qarbi dhaxamuhu dileen dufaankii qabowga daran barbaadada soo rugmiday habeen dumiyuu la tegay naftooda barbaaba dilay markay dunidii naceen aqoon-yahanama tirsan xallada derbitiif ku yal digriga culimada ugo dar alleenooguma hadlan dastuurkuna uuna gabay qoraalkuna uuna digay dadweynaha uma bandhigo ciilkiyo dacaskaana dhiibay waxaan calayahu dushiyo daruurta kasoo lushan darxumo hoostaada tal lugiyo daranduurku maray ka kalena waxa weeyaan naf baan ahay dheerido dhantaal iyo ciil qabto intuu dhaawacay waqtigu dhirbaaxada waayihiyo duruufuhu dhala rogeen dhalaan aan waalidiyo walaala dhashiye lahayn dhabtiye hilbaan hoo wadada dhinaceega iyo ku koray derbiga intaa waan dhiiradaa dhambaalaan soo diraa haddana lama dhaadaye kuwaanu dhawaaqayo miyaydaan dhiga lahayn intaan isku dhiignihiyo dhammaan soomaaliye dhegeysta warkayga oo arkuu dhaayaha u fura dhibaatada aan ku jirno haddaad dhisateen guryo sariir dhigateen qurxoon dad iyo baso saarateen anagu dhel soo di'iyo dhaxanta waxba kama hiwado haddaad dhiiniga cuntada markaad dharagtaan qubtaan weliba dheeldheelaysaan anigu dheefmaan helin dhandhamayo oon malaqin hadduu duway kugu wardhaco haddaad dhakhtarada tagtaan anigu dhuumeerisiyo bukaan baanay xanuun dawiyo dhanama helo haddaad dheeldheelaysaan caruurta ku dhaarataan dugsiga u dhaqaatisaan anigu dhaxmaha jahliga ayaan ka dhaxooyayaa dhulkaa rabbigii golle kaa odoblaan dhankiisa inaan ka helo dhammaysiyo nolol habboon dharaar qura uu karaa ha yeeshee dheehanow dadkaa lagu dhiganayaa inay ii dhidibiyaan iyana kama dhaadhacdee halkay noo dhaafayaan markaas waa gabaygaas oo gabayga waxaan sameeyey ugu dhalatay 2020 waxa weeyaan waa imika lagu jira waa gabaygu ugu dambeeyay soo dhiga meesha marka daawadayaasha xiisaha leh ee aad ka xiiseeya magaca iyo muuqaalka taqaana aad baan u salaamayaa xidigahana waxaan leeyahay inta yaradee aad saad gareeya oo de hanaga ilaawina nolol soo jeesta anaguna mar walba waxaan naga raali gelinaynaa barnaamijyo heer xiisa leh oo filimaan ku jiraan oo ku jiraan riwaayado oo ku jiraan jacayl waxay waayihii nolosha oo dhan marka de waxa weeyaan waad ka heli doontaan bay la tahay anna waxaan nagu salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu insha allah xuseen mandela ayuu ninkaas inala wadaagay waxyaabo badan oo taariikh iyo naftiisa ku saabsan marxaladii kala adkaaya uu soo maray maasha allah xuseen mandela waxaan leenahay aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaynaa sida quruxda badan eed waxaan ku wuri asxaabta aad ugu heestay ugu gabayday ugu sheekaystay maasha allah mana aha markii ugu horeysay saan idiin sheegay uu halka ka soo muuqan doono insha allah mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad uu soo fadhiisanaya halkaa si aad ula socoto insha allah subscribe-ta like share comment insha allah nagala ما خيرنا رب خير إن شاء الله بالله كريم وحن إن شاء الله هذا بقى وحن واسكسوق بقولين دون إن شاء الله بإذن الله كريم شاطايو جتلا وحنا أصحابته وحسد له بدنا نسأل وحصل مري ويا هذا الشيء ها يسحب حتى نجح في الكلام وانت عارف تطلع مرة بيجي على هاي وحرتها أنا أصحابها لو كانوا
وكلياتها وحويان إن channel subscribe كريان إن شاء الله ومهم والله ما كلام مارمان ما كلام مارنو صح أظن إن channel كيس أبتي هلا هلا صح شكرا دونا يكلم جعل هاي إننا ما نجعلنا أصحاب علينا already مركب حاجة ساعة أصحابها وحنا لي هاي مركز تلقو حدنا هذا صح هنقع عاجزين يعني هي رجلين أي سوقين دون هدول هيدا فيلمان يعني هي وحياة كانت تدون وإن رالي جلنية أي سوقين دونا مرة كار واحد عدين أنشان خير حبسانه وأنا هروح وحوي سوقين تاسنا وعقبة سكتشرة أو ده نو بدي هاي بيلي هاي كوا حبرتها كوشتية يعني هاي يسكب بدين ظروفه في البديهين markaas sidee baa jirin inaan mar walba wax soo gelin weyno waxaan nagu kalifay inaan yani waqti badan u yarhelin balse waan idla dadaalanaa mar kasta waan soo gelinaa waxyaabaha aad u baahan tihiin ugu caawisan subscribe iyo like iyo share maharada waynu qaleenahay warsama waa sida tahay maasha Allah aad salaamna asxaabta waa gabagabadii xasan bin soo gaarnay xasan waxaan oran karaa waa markii saddexaad waa ninkii mataliyay qaybtii filmka caasiga oo aad loogu bogay qaabkii uu maaragtay waayo kulli horta wax kasta oo la matalaya macnaheedu wataan ma aha wax iska jira waayo wax adduunka ka jira qof waalidkii caas ku ah oo dhibaya oo kadeedaya maanta ugu xun daawada waxaan ku leeyahay weliba gaar ahaan waxaan aad ula hadlayaa dhalinyarta haddii ay hooyadaan nooshahay weli waxaad haystaa fursad aad jannada ku gasho ka ducayso hooyo waa hooyo waa waalidkaa waxa weeyaan mar walba waxaad u qabataa wax kastoo ay kaaga baahan tahay hooyadu waa lama huraan marka sababta aan filinkaa u bilownay wax kale maaha midda hooyada noo sideedina hooyo qaaliya ayaa sameeyey kaanahan hooyadu sii daayay okay bal dhegeysta daawadayaasha aadka noo xiiseynaya waan jecelnahay iyaguna waan jecel yihiin waxaan xiiseynaynaa hooyada qiimaha nolosha leedahay ay ku fadhida mar walba iyo miisaanka xasanaadka kale ee hooyo abaalkeed lagu gudi karin hooyo waa tu ku dhashay way ku soo barbaarisay tinkay ayay kugu haysay rafaad iyo dhibaato ay soo martay way dheer tahay way taxaan dheer marka hooyada waan qaadaynaa hooyadii tihatee dambarteeda caanaha kaga taqaydimnahay kadib bire calooshe bambambam tarararam bambambara tantan tarararam tantantaran hooyadii dalxumayo kulli iyo dhibaatiyo iga dhurtidanane xumaiga difaacday tantantan tarararan tantantaran dabadeed luloode dabadeed dushaydu xambaar tahay tantantan tarararan tantantaran waxaad tahay dhammaantood wixii daraan iga daabi haysay tantantan tarararan tantantaran hooyadii tihatee dambarteeda caanaha kaga taqaydimnahay kadib bire calooshe bambambam tararaaran tantaran dabadeed moode dabadeed dushaydu xambaar tahay waxaan ogahay inaad hooyada jeceshihiin anna aad baan u jeclahay aad iyo aad baan xuseeno wallaahi waxa weeyaan qodob muhiim in asxaabta xasuusinay waxaan kusoo hadal qaaday ninkan xasan oo filinkaasi jiray habaar waalid waa mahadho qaybtii koobaad baan soo duubnay waad nala socon doontaan insha Allah inaan filinkaa dhammaystirin waan rajeynayaa kulley waxa kaloo aad loogu xasuustaa xasan maalintii 18 May dadkii quruxda badnaayo iyo sida nin muwaadinimada ku dheer tahay iyo qaabka uu muujinay muwaadinimadiisa naftiisana halis u geliyo taa waxaan leenahay bal xasanow hal iyo laba eray ka dhe bal kulley waxaad ka soo muuqatay waa labada caawa ku saddex intii aad markaas si bal wax kaaga soo noqday ma jiraan oo wax laga weydiiyay horta shawayda walcaaska ayaa waxaa laga weydiiyey riwaayada walcaaska waxaan u soo duubnay imika inta ugu badan markaas labada sanadkan ka ilaa 2018 wixii ka dambeeyey waxa aad iyo aad soo batay walcaasiga inamada yarda waxay noqdeen qaar wada qayla qaadka buluuda wada bilaaba kadib
wax walba soo sameeyaan xaafidooda loo qabsado intay iska soo marnaysaa waxay doonayaan soo sameeyaan telefoon soo qaado dadka soo qaada qof mid soo geliya dabeeto xaafidooda la imaado oo hooyadii soo korisay inta soo leekeysay kadib dib loo qabsado ya marka sidaa darteed ayaan roodan wada xaas u soo dhignay dadka aniga wada casbiyay maxaa daabaha qacan ku qaaday aabahay qacan ma qaadin ee waxa ka turjumaya dhalinyarada sanadkan jirta hooyooyinkood iyo aabayaashood intay soo koriyeen soo baariyeen iskuulku dareentay iskuulka ka baxaan intay rabta soo goraan dad midi soo geliyaan iyaga hooyooyinkii xaggay hooyooyinkoodii wax ka siin lahaayeen hooyooyinkood dib dhibaato la soo dooranaya ayaan leeyahay waa hooyo wayna dhashay inolaliyo hooyo iyo aababa waa dadkii fayna keenay haddiina hooyo aabi jirin maynu noolaaneen mawaynu dhalaneenba marka hooyo waa halayno ilaaliya baan leeyahay asxaabta guntiga gabagabadii baan soo gaadhnay asxaabta qaaliga ay sharafta badan meel kastoo aad tacalada dunida naga daawanaysaan waxaan leenahay nala socda kulley waxaan leenahay hooyadu waa qaali inta hooyadaa nooshayna kuwii maaragtay dhintana allah u naxariisto jannatul firdaws allah ka waraabiyo inta noolla waxaan leenahay dhalinyarada ha ka faa'iidaystaan fursad weli waxay haystaan ay jannada ku galaan hooyadaa hadday nooshahay ka ducayso waxaan ku wuray ma garanaysaa insha allah dhibaatada samafal wanaagsan u sameeya haddii alla ka dhigo aad baan idin salaamaynaa guntiga gabagabadii baan soo gaadhnay asxaabta waxaan leenahay subscribe like share comment haddaynu iska helno jecel nahay boqolkiiba boqol wax kastoo aad ku qanacsan inuu soo gudbina haddii alla ka dhigo insha allah aad baan idin salaamaynaa waxaan leenahay nabadgelyo